waxaana la yiraahdaa qofku marka xilka aad u wado laba shayba waa inaad ku taqaano kow inuu ammaano leeyahay oo waxa loo dhiibo loogu iman karo labana inuu aqoon leeyahay oo waxa loo dhiibo maamuli karo nidaamin karo intaas qof aan ku hubno ku naqaano ayaan maanta garab u nahay maanta waxay dadka inta leegu soo baxaan inay kow kaarka qaateen labana ay garab u noqdaan gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud oo qof aan loo sharaxay dadka ahayn waayo deegaanka uu ka shaqeynayay waxbarasho ka waday qayb kastii oo uu wadayna qof ka soo dhalaalo ahaa dalka Soomaaliya waxa uu gudbay marxalad qurux badan runtii doorashada qof iyo codka ah si guud la rabo Soomaaliya in laga qabto waa soo dhaweynaynaa waxaan joognaa xarumaha lagu qaato kaararka codbixinta waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa ama aan u sheegaynaa inay qaataan kaararka codbixinta anigu waxaan ka mid ahay dhalinyarada doonaysa inay ka qayb qaataan shaqada socota waxaan ka mid ahay dadka ku dhiirigeliya inay kaararka codbixinta qaataan waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan reer Galmudug si gaarana reer Gurceel inay kaararka codbixinta qaataan si bari ay codkooda cidda ay doonayaan ugu soo saartaan dhammaan waxaan isugu soo baxnay marka koobaad inaan hantino ama aan qaadano kaarka codaynta kaasoo rabno inaan hiilo iyo garab ugu noqono qof aan naqaano ammaanadiisa iyo aqoontiisa kuna aamini karno xil umadeed aan isleenahayna dhibaatooyin badan oo taagan xalkoogu noqon kara waxaana la yiraahdaa qofku marka xilka aad u wado laba shayba waa inaad ku taqaano kow inuu ammaano leeyahay oo waxa loo dhiibo loogu iman karo labana inuu aqoon leeyahay oo waxa loo dhiibo maamuli karo nidaamin karo intaas qof aan ku hubno ku naqaano ayaan maanta garab u nahay maanta ay noqonayaan go'aan gaarayaal inay codkooga heel ugu noqdaan qof deegaanka wax ka bedeli kara waxna ku soo kordhin kara maanta waxay dadka inta leegu soo baxaan inay kow kaarka qaateen labana ay garab u noqdaan gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud oo qof aan loo sharaxay dadka ahayn waayo deegaanka uu ka shaqeynayay waxbarasho ka waday qayb kastii oo uu wadayna qof ka soo dhalaalo ahaa maanta waxaan heel ugu nahay kaarka aan qaadanay iyo dadka kaarka qaadan gooniba inay gudoomiye nabada ugu codeeyaan fariinta kale aan sidnaano waxay tahay qof kasto heelana nala noqonaya koow waa inuu kaarka haysto labana Cismaan nala doorto maanta waxaan joognaa xarun kamid ah xarumaha diiwaangelinta codbixiyayaasha maanta waxaan u nimaanay inaan qaadano kaarka codeynta intaas ka bacdi waxaan maanta garab taaganahay haddii aan dhalinyarada iyo odayaasha iyo aqoon-yahanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan isugu yimid xaruntan gudoomiyaha ahna musharaxa degmada Gurceel gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud oo aan ku naqaano nin aqoon iyo karti bulsho leh bulshada Gurceelna wax badan u soo qabtay gaar ahaan qaybaha kala duwan ee waxbarashada aad uga soo shaqeeyay waxaan bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqaynaa inay nala qaataan fikirka aan qabno ee ah in aan codkeena siino gudoomiye Cismaan Macalin Maxamuud taageerana aan u muujino runtii Cismaan waa nin lagu hubo aqoon iyo karti iyo maaragtay bulshadana wax badan u soo qabtay asagoon xilhiin intaas ayaan ku baaqaynaa maanta laakiin waxaan soo dareernay qaadashada kaarka codbixinta waxaan joogaa xarun kamid ah xarumaha laga qaadanayo kaarka codbixinta xarunta Balaasma bulshada dhamaantood waxaan ku bogaadinaa inay qaataan kaarka codbixinta aniga waxaan ahay musharax u taagan golaha deegaanka waxaan igu dhiiriyay maadaama ay qof iyo cod noqotay awal haweenka waa la garab bidixayn jiray laakiin hadda waxaan aaminsanahay haday qof iyo cod noqotay inaan heli karo cod badan oon ka heli karo haweenka waxaan ku faraxsanahay inaan joogno mid kamid ah goobaha lagu qaadanayo kaarka codbixinta waxa wax aad loogu farxaa ah inaan soo gaarnay heer qof iyo codkeeda lagu doorto ummadii la daneeyay maanta ay taamaaneen khamiisa 2 bisha 10 2025 waxaan joognaa xarun kamid ah xarunta lagu diiwaangelinayo dadweynaha reer Gurceel loo asteeyay inay ka dhacdo doorashada qof iyo cod ka bilaabato heer gobol deegaan ilaa heer xildhibaanada federaalka waxaan ku faraxsanahay ilaahay inuu maanta kale nagu samay caafimaad qab iyo amni inagoo haysana u diyaarsan inaan isdiiwaan gelino qofkii hankiisa ku soo bandhigo kii raba inuu wax doorto oo uu rabo ilaahay kuma samadiida inuu qofka uu rabo uu doorto maanta waa maalin taariikhi ah reer Gurceel waxaan ugu baaqayaa inay si guud isu diiwaan geliyaan
cidda guulaysanaysa iyo qofka ay rabaan waxay ku soo saari karaan inay kaarka qaataan inay ka soo baxaan xaafadaha goobaha ganacsiga iyo meel kasta ay joogaan inay si mug iyo miisaan u qaataan kaarka codbixinta isdiiwaan geliyaan soo baxaan maalinta taariikhiga ka faa'iideystaan dabcan isdiiwaan gelintaanu iskama furra maalin kasta saan isleeyahay waqtigeeda loo asteeyay haddii waqtigii ku dhaco kama faa'iideysanayaan oo dee waqtigaas sidaaba ku tegay qofkii haminayay inuu maalin uu soo gaaro inuu codkiisa dhiibto cid uu rabana siiyo waxaan leeyahay ha soo baxdo kaarka ha qaadato ha isdiiwaan gelido maalin ay dadku cod la weydiisan karo ha gaarto haddaadan kaar qaadan wax lagu weydiisto ma haysid qof aad diidi karto qof aad dooran kartaana ma jirto fursadda laga faa'iideysto maalin kasta ma furra maantay taagan tahay